السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أمد الصوماليات وإذن سلامي سلام دبديد وحن إذن ودا عشر أن بحجري أو English grammar English grammar خاصة grammar كان ما نتربو إن وحكا شيغو وحا يهي plural forms ka ama sida plural looga dhigo magacyada ama wadar sida looga dhigo in English markii aad rabto inaad wadar ka dhigto inta badan waxa la raacsiyaa s ayaa la raacsiyaa magaca erayada qaar waxa jiro waxay sameeyaan in lagu daro es qaarna way hadii u dambeeyaan wide ayaa la tuuraa ka bacdi is ayaa la raacsiyaa so hadii aan number 1 ka bilaabo most of the nouns inta badan magacyada at waxaad raacsiisaa in plural s raacsi in plural marka ay wadar tahay waxaad raacsiisaa s raacsi so sida halkan ka arki karto erga computer waxaan raacsiinaynaa erga s ayaan halkan kaga daraynaa then wadar ay noqonaysaa computer computers waa hal computer iyo computer badan schools marka maxaan wadar uga dhignay s ayaan ku darnay numberka xiga waxa uu yahay waxaan leenahay nouns magacyada daadandi in s double s sh o ch ama ch ku dhamaanaya waxa ku dartaa es so mar labaad dan ku celiyo waxaan leenahay nouns daadandi in s double s sh o ch at waxa raacsiisaa es raacsi to form plural si aad u dhigto wax plural addresses raacsiinayna es addresses watches some nouns magacyada qaar daad end in kuwaas oo ku dhamaanaya y change to uruk ama u bedel is dhamaadkooda sida universities families oo kale waka universities families oo kale waayahay si guud hadaan si boobsiis ugu soo celiyo waxaan leenahay magacyada Englishka marka rabto inaad wadar ka dhigto inta badan waxaa plural looga dhigaa inaad s ku kordhiso magaca most plural nouns magacyada inta badan wadarta aad waxaad raacsiisaa s raacsi in plural marka aad plural ka rabto in plural erga sida computers ayuu noqonayaa schools ayuu noqonayaa number 2 nouns that end in s double s sh o ch aad waxaad raacsiisaa es marka erayada ku dhamaanayo s double s sh ch waxaa raacsiinay es ay raacsiinay sida erga address oo ah ciwaan waxa u dambeeyay double s addresses aleeda watch oo ah saacad watches saacado ayaan leenahay ficil maan hadda waayahay numberka saddexaad some nouns that end in magacyada qaar oo ku dhamaanayo y change waxa u bedeshaa to ies u bedel sida universities oo kale families oo kale aad u mahadsantahay walaal hadii xilligan aan la soo gaartay channelku waa channelkaaga hadii aad subscribe dhahdo waxbay noo tiraysaa shidaal ay noo noqonaysaa marka subscribe inaad dhahdo ayaan ka rajaynaynaa waxaan noo soo socda qaybta exercise-ka sida caadiga video kasto oo aan soo duubayo waxaan soo raacsi doonaa exercise marka exercise-ka inta aanan ka shaqeynin ka hor istaajiso ka bacdi ka shaqeeyo like-tana ka iloobin waayahay plural nouns some nouns magacyada qaar are irregular magacyada qaar waa kuwo aan waafaqaynin nidaamka
s ku darida ahaa ama es ku darida ahaa ma waafaqayaan marka waxaa loo baahan yahay kuwan inaa xifdisan tahay sida erga child canug waxaan leenahay children caruur okay man qof rag ah mean rag badan person shaqsi people dad badan markan waa exercise isku day inaa exercise ka samey karto marka waxaan leenahay make waxaa sameysaa the words in plural plural ka dhig waayahay business woman waa qof dumara oo ganacsato ah qof dumara oo ganacsato ah sidee uga dhigaynaa gabdho badan oo ganacsato ah waxaan leenahay waa business okay min aan ka dhigaynaa meeshaas waxaan ka dhigaynaa en business women gabdho ganacsato ah business women so ereyga house waxaan ku kordhinaynaa oo kaliya s ayaan ku kordhinaynaa waxaan leenahay house s ku dar houses waayahay sandwich waxaa u dambeeya ch sida haddaad hore usoo qaadanay waxaa lagu daraa es waxaan leenahay sandwiches okay sandwiches waayahay camera waxaan leenahay cameras s kaliya ayaa ku kordhayso cameras s ayaa ku kordhayso waayahay ayagoo caadi ah oo aan shaashada lagu qorayna waa kanaha waxaan leenahay business women dhawaqa uu isbedela business woman waa markay hal qof tahay business women ayaan dhawaqa ayuu noqon doonaa houses parties waa the tour yes ku bedel sandwiches cameras okay marka ereyada Soomaaligooda business woman gabar ganacsata house guri waaye party xaflad waaye sandwich waa rootiga dhexda wax laga geliyo waxaan leenahay camera waa kaamirad marka walaal haddii aad dhamaysatay like sar wuxuu u fududay doonaa asxaab badan inuu gaaro aad iyo aad u mahadsan tahay saaxiibadan u share garay channelka waa channelkaagii iyo channelkii Dr. Ali Abdullahi qayb oo insha Allah dhakhtarnimadeedana inaan soo geliyo ayaan ku rajaweynaa insha Allah one day